maalin iyo habeen gudaheeda ayay arrimuhu isu rogeen madax iyo mijo waxaana waa xilligii ugu adkaayay soo mara bulshada rayidka ee Afghanistan markii caasimadda Kaabul ay u gacan gashay xoogagii Taliban. haddaba maxaa ka socda Afghanistan waa maxayna sababta ka dambeysay inay dadku yaacaan gegida diyaaradaha ee waddankaasi daawadayaasha ku xidhan Madowless TV waxaan daaha idinka qaadi doonaa dhacdooyin ku salaysan dhibaatada ka taagan Afghanistan ee baraha bulshada mashquulisay maalmihii la soo dhaafay. Subscribe taaba si aad ugu soo biirto barteena YouTube. dhaqdhaqaaqa Taliban wuxuu soo ifbaxay intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye Afghanistan ee horseedka u ahaa in xoogagii midowgii Soviyeetigu iskaga baxaan dhulkaasi sanadkii 1989. Taliban waxay ku dhawaaqday inay dhulka Afghanistan ka hirgelin doonto nidaam sharciga la ku dhisan oo musuqmaasuqa la dagaalamaya, balse xubnaha xarakadan ka tirsan waxay islaamka ka istaageen dhinaca qalafsan oo ka takan waajibaadka diiniga ee islaamku kor yeelay. sanadkii 1989 kooxdani waxay gacanta ku dhigtay qaybo badan oo dalka ka mid ah. kolkaas waxay dhaqan gelisay sharci cusub oo aan raggu garka aanu iska xiirin, dumarkuna ay hagoogtaan dhar culus oo dhammaan jirkooda wada qariya. sidoo kale waxay mamnuuceen daawashada telefishinada, sinamada, dhawaaqyada muusiga leh nooc kasta ay ahaadaanba. balse ugu dambeyntii waa laga roonaaday kooxdan, waxaana isku urursadeen xuduudka iyagoo dagaalo naf iyo maalba lunsaday la galay xoogaga Mareykanka iyo ciidamada Afghanistan. qiyaastii 20 sano ayay kooxdani dhuumasho ku jirtay. guyaashii la soo dhaafayna waxay si tartiib ah uga dhex muuqanayeen xubnaha Taliban jagooyinka ugu awoodda badan waddankaasi. ilaa xaaladdu sii ximaatay maalmihii la soo dhaafay iyagoo la wareegay gacan ku haynta goobo muhiim ah gaar ahaan marinada sohdimaha. waxaana kaliftay arrintaasi in xoogagii Mareykanku iskaga baxaan dhulka Afghanistan. kooxdu waxay si dhib yar ula wareegtay dhulkii dawladdu ka talinaysay. xaaladda qalafsan ee ka soo cusboonaatay Afghanistan ayaa muwaadiniinta ku abuurtay walwal iyo walaac xad dhaaf ah kadib markii madaxweynaha Afghanistan uu ka fardhaday dalkii uu ka talinayay, taasoo gogol xaad u noqotay Taliban qabsashada Kaabul iyo gebi ahaanba dalka Afghanistan. Taliban waa dhaqdhaqaaq Islaam Sunni ah siyaasi oo hubaysan. hogaamiyayaasheedu waxay aaminsan yihiin inay dabaqayaan sharciga alle, haddana waxay gacanta ku hayaan dalka Afghanistan. nidaamka ay hirgeliyeenna waa imbaradoriyadda Afghanistan ee Islaamiga ah. kooxdan waxaa aasaasay Mulla Maxamed Cumar sanadkii 1994 waxaana ay ka mid ahayd xoogagii ugu cadcaddaa dagaaladii sokeeye Afghanistan. caasimadda Kaabul waxay la wareegeen 27 Sebtembar 1996 iyagoo u raray Qandahar xarunta waddanka looga taliyo. xukunkoodu waxa uu socday ilaa 2001. waagaas waxaa ka awood batay ciidamada Afghanistan iyo kuwii Mareykanka. kooxda waxaa hogaamiyay Hibatullah Khondzada. jagada waxa uu qabsaday 25 bishii May 2016 kadib markii la shirqoolay hogaamiyihii ka horreeyay Akhtar Maxamed Mansuur.